magacaygu waa Axmed Nuur waa ninka ay leedahay adeerkay waaye marna aabe waa ay leedahay hani waaye way qiyaantay qiyaamada dukumentigeedina waa haya inta ay ii soo dirtay iyo sawirka gabadha ونكاحها بالمهر المذكور. waa muuqaal kale oo caddayn looga soo duubay aabihii beenta ahaa ee isku meheriyey Hani iyo Kamaal Cabdul. Haddaba aabahani waxa uu ka sheekeynayaa qaabkii dhagarta lahaa ee loo qiyaanay maadaama Cabdisalaan oo in ka badan 30 sano is yaqaaneen inta xaaskiisii iyo Kamaal Cabdul ay soo wada waceen ay ka dhaadhiciyeen in uu noqdo aaba feeg ah. Haddaba qaabkee loo maray Hani sidee isaga dhigtay gabar aaba la'aan oo kamid ahayd ilmihii ku dhashay isbitaalka soos ee aabalaanta ahaa. Haddaba waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal caddayn rasmi ah wixii dhex maray Hani iyo sidoo kale aabahan beenta laga sheegay ee sida feegta isugu xiray Kamaal Cabdul iyo Hani. Aanse yeeshee daawadayaalinta aan kula wadaagin fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu baaha una gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed. Sidoo kale nagu soo biiro kamid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya ganbeelkana u furanaya. haddaba daawadayaal inkasta oo Kamaal Cabdul uu qirtay in gabadha uu qabay xaas la qaba ay tahay hase yeeshee muddo fara badan ay qaatay dagaalkan iyo jihaadkii aan ugu jirnay in gabadhan aanu reerkeedii ku soo celino Kamaalna gabadhan uu dhacay xooga uu ka haystana aan ka soo celino. haddaba daawadayaal muuqaal waxaa jira aynu ka soo duubnay ninkii sida beenta isugu xiray ee matalayay in uu yahay aabaha Hani laakiin beenta ahaa. haddaba ninkan ayaa waxa uu ka sheekeynayaa in dhagar halis loo maleegay oo la sixray gabadhana ay ku sameysay qiyaano halis ah. haddaba ma gabadha ayaa qiyaanada wadatay mise Kamaal Cabdul ayaa ka dambeeyay? waxa uu ka sheekeynayaa wixii iyaga dhex maray markii ay la soo xiriireen. waxa uu sheegayaa inuu hayo dukumentiyo caddayn ah oo muujinayo wixii iyaga dhex maray codod iyo wax walba. haddaba bal aynu isla daawano muuqaalkiisa. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan sheegayaa horta inta aan bini'aadam inta ilaahay ahayn way qaldamaan. magacaygu waa Axmed Nuur waa ninka ay leedahay adeerkay waaye marna aabe waa ay leedahay hani waaye way qiyaantay qiyaamada dukumentigeedina waa haya inta ay ii soo dirtay iyo sawirka gabadha ay ii soo dirtay waxay ii sheegtay inay tahay gabar reer Soosa gabadh oo aan dad iyo ehel lahayn. ninkaas inaan u macintaa loo baahan yahay walaalow saas waaye. anigana waxaan ku ogaa Cabdisalaan cali xaashi inuu qabo gabadhan markii meherkeedii horena waa la joogay oo waxaan ka tirsanaa dadkii nikaaxeedii meherkeeda shuhuudda ka ah aan ka tirsanaa Hani markii la guursanayo. waxaa idin sheegaa qiyaamo heerkaas la eg ay nala martay gabadhaasi. dukumentiyaashan waa arkaysaan gabadha masawirkeeda ii soo dirtay iyo codadkeediiba waa leedin maqashinaya haddii ilaahay yiraahdo. waxaan ka qayb galay xaflad aan waxaa idin sheegaa qiyaamo heerkaas la eg ay nala martay gabadhaasi. dukumentiyaashan waa arkaysaan gabadha masawirkeeda ii soo dirtay iyo codadkeediiba waa leedin maqashinaya haddii ilaahay yiraahdo. waxaan ka qayb galay xaflad aan waxba la iska weydiinin oo qof wax la weydiinayo si jirin. waa garatay sixirka Cabdisalaan sheegayna waxaa ka jira aniga inta halkan lagu yimida wax la sheegaa afgooy aan waa garateen Soomaa. waxaa iska bari yeela Cabdisalaan inaan wax ku talagal aan ku sameeyo. waxaan ka dalbanaa cafis inuu isku cafiyo walaalkay reer Soosa inaan qaladkaas waa jira inaan galay qaladkii laakiin waa wax la qalday qofka inta ilaahay ahayna way qaldantaa. waxaasna waxaa ka masuula oo waxaan kaartadan dhigtay ninka gabadha hadda haysta uu haysta ilaa meesha qabitaan ma yaalo waa wax uu haysto qof uu haysto waay madaxa uu ka haysto waay. aniga hadli waayay oo ma taqaan ilaa asquraan saar hadli waayaba ilaa asquraan saar aniga waa hadli waayay. waa garatay Soomaa. waxaa idin sheegayaa gabadhaas inay 8 carruur dhashay. 2 carruur ayadoo haysta ay baxday oo ay aad Yurub asoo beer ka shaqeynayo lacag uu beer ka shaqeeyo ku geeyay aniga wiil iyo gabar ay haysatay 3 kale ay ku dhashay Sweden. 5 ay haysataa hadda halkan 2 uga dhimataa uma leeyahay 3 uga dhimatay. waa fahamtay ninkaas waxaan ahayn ceesho milix way qiyaantay beenay ii sheegtay gabar reer Soosa oo aabba lahayn 2 uga dhimataa uma leeyahay 3 uga dhimatay. waa fahamtay ninkaas waxaan ahayn ceesho milix way qiyaantay beenay ii sheegtay gabar reer Soosa oo aabba lahayn waxaa loo noqonaa aabba ninkaasi saaxiib yihiin ay isbarteen sidaas ku aad meesha aniga ma ka filaynin ayada tahay. goor dambe ogaaday waxaa 1,000 jeer dalbanayaa Cabdisalaan inuu iska cafiyo
ninkaas xaaraamigaana hadduu uu wax maqlaayo anigii waay waxa hadlaaya ninkii aabaheed ay ka dhiganaysa waay waxa kula hadlaaya oo la siray waay waa garata soo maaha gabadhaas qabnin meeshaas kuma yaallo bilaasha youtube-kan iyo balaayada iyo heesahan ay isu kor saaraysaa islaamka haddaa ku jirto gabadhaas beri ka noqon cabdisalaam waxaan ka cabsanayaa 1,000 jeer haddii ay macquul tahay inuu iska kii cafiyo wasalaamu calaykum reer soosna waa kuwaana way wada joogaan maasha allah sidoo sheegaa walaalkeen qof bini'aadanka waxa waaye waa laga hoos bixi karaa haddana caddeynteedaan oo noogu yeedhay asaga ma fahantay marka walaasheen ilaahay soo hadiyey aan leenahay walaalkeen axmed nuur heenna waa kana oo awal weli laga dhigtay oo la siray siduu afkiisa hadda ku sheegaa marka waa kaasa waa kana dukumentigani insha allah waa la soo diraa loo soo diraa asaa youtube ka sii deynaya wixii dukumentiga waxaa la xiriiri doonaa bismillahirrahmaanirrahiim horta maanta maalin farxad waa saan warku bilaabay baarka axmed nuur khayr allah si aad u qiiraysan yahay cabdisalaam waxaan si uu jiro codsanayna haddaba runtii muuqaalkani waxa uu muujinayaa in ninkan loo maleegay dhagar halis ahayd oo la khiyaanay haddaba waxaan leenahay runtii arrintani waa isuu gabagabooday laakiin kamaal cabdul weli waxaa horyaallo in uu soo bandhigo caddaymo rasmi ah caddaymo ayaa laga rabaa maxaa yeelay keliya kuma qanci karno arrintan waxba kama ogeen waxaan u baahannahay codadkii dhex maray gabadhan markii la soo xiriirtay waxyaabihii ay u sheegtay iyo sidoo kale markii isaga lala wadaagay in gabadhan la qabo 12 November oo ahayd sanadkii hore 2021 markii waxaas la dhahay wixii uu ku qancay ee gabadhani ay ku qancisay inuu la wadaago oo caddeyn rasmi ah uu keeno laakiin gabadhan iska haystay markii ummadda Soomaaliyeed buuq ay ugu fureen markii shaashadaha caalamku idil aan fuulay ayaan leeyahay haddan soo baraarugay runtii wax la yeelaya maahan wax la aqbali karana maahan waxay la gabar nin qabo oo hooyo ah ayaad sharafteedii dishay oo dhulka agiliday inaad maanta sharaf isku yeeshay kaliya oo isku soo koobto waa la qiyaanay runtii wax la aqbali kara maahan haddii qof qalad leedahay qaladku weyn adiga ayaa qaadan doono gabadhanna waxay noqon doontaa gabar ama maskaxda laga galay ama la sixray ama wax kale lagu sameeyay sababtoo hooyo 8 cunug dhashay kama suurtoodo ciyaar suuqnimo iyo waxyaabaha adigu hadda maanta aad ku tilmaamayso laakiin dhagar adigu aad maligto asalkeeda adiga ka imaatay ayaa gabadhan Soomaaliyeed sidaan u gashay hadaba daawadayaal warbixintii aan ka diyaariyay halkaan ayaan kusoo gabagabeynaya intaan muuqaalkiisa kala kulmayno sida iyo nabadgelyo mahadsanidin magacaygu waa Axmed Nuur waa ninka ay leedahay adeerkay waaye marna aabay waaye ay leedahay hani waaye way qiyaantay qiyaamada dukumentigeedina waa hayaa inta ay ii soo dirtay iyo sawirka gabadha ونكاحها بالمهر المذكور magacaygu waa Axmed Nuur waa ninka ay leedahay adeerkay waaye marna aabay waaye ay leedahay hani waaye way qiyaantay qiyaamada dukumentigeedina waa hayaa inta ay ii soo dirtay iyo sawirka gabadha ونكاحها بالمهر المذكور